dawladda hoose oo kaashanaysa ciidamada bilayska magaalada Laascaanood ayaa saakid baneeyay wadadii toddobaad oo ku taala dhanka waqooyi bari ee magaalada Laascaanood dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi bisha cas ee magaalada Laascaanood ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay ololahan ay dawladda hoose ku wado wadooyinka magaalada Laascaanood iyo waliba baneeyntooda iyo qurxintoodaba gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaanood oo weheliye xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirir iyo waliba mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa iyagu halkaasi ka hadlay iyagoo sheegay in wadooyinkan ay ka mid yihiin wadooyinka la doonayo in dhamaantood ay daafaha Laascaanood ka baxaan isagoo u mahad celiyay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood una soo jeediyay inay ka qayb qaataan bilicda iyo waliba soo celinta bilicda magaalada Laascaanood maanta waxaan taaganahay wadadii wadada la yiraahdo bisha cas tagta ee laamiga soo degaysa Alaska waxaan maleeyaa waa laamigii lixaad ee Laascaanood iyo Laascaanood intaan joognay waxaad ogaataan magaalada Laascaanood laamiyadu waa wadan awal laami baa dhex mari jiray kaliya laakiin maanta intaan joognay kii lixaad ee la sameeyay weeye waxaa mahad iska leh dadweynaha deegaan xaafadan soo dhaweeyay dabada aanu dhisayna hadda hawsheeda ku jirno saad aragtaan hoos taaganahay dhismayaal aanu duminay waxaan marayaa waa gurigii sideedaad ee hadda wadadan dumo xaafadan Jaamalaay dadku iyaga sii doorsaday wax dhibaato ah ma leh dadku dhagooyinkii horumarka u baahan yahay qof dan gaar ah iska jiraya meel walba ama wada degan laakiin waxaan uga deganaa cid kastoo dhaba degan meeshii wada marto waa laga dumin doonaa waxaa goobta antuna waa wadadii lixaad ee laamiga ay wado dawladda hoose degmada Laascaanood mashruucaas muddo soo socday bishii ay gashay sida muuqata wadarka dadweynuhu soo dhaweynayaan hawshan si nabadgelyo ah bay ku socotaa waxa ilaahay mahadi loogu mahadiyaa ilaa ay haddeer inaan wadooyinka aan wado ee maamulka dawladda hoose wado wax dhibaato ah oo dhaawac ama dhibasho shacabana ka dhicin sida mataqaana degmooyinka deriskana marka wadooyinka la furay hadii jeer dhimasho ama dhaawac ka dhacdo way dadku soo dhaweeyeen shacabkuna waxa weeye waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaa sida muuqata waxay maraysaa hadda mataqaana feeskii labaad ay maraysaa feeskii koowaad waxa ahayd in la dumiyo oo dhulka la baneeyo feeskii labaad oo hadda caratuurkiisa ay maraysaa raxiim waa ilaahay mahadi maanta iyadoo halkan aan taaganahay taa wadadii bisha casayd ay tahayna wadadii lixaad ee degmada ka suuro gasha anagu sidaad aragtaan waanu ka dhabaynay una heelanahay inaanu rumayno ballanqaadkii dadweynaha aanu ballanqaadnay xilligii aanu kaambeynka ku jirnay ilaa imika inta hadhaba waanu shaqeynaa bulshada waxaan iyagana u baaqaynaa inay ka qayb qaataan si nabadgelyo leh wadooyinka iyo soo celinta bilicda degmada Laascaanood dawladda hoose degmada Laascaanood ayaa midooyinkii u dambeeyay ku hawlaneed magaalada Laascaanood sidii ay ugu sameyn lahayd wadooyin laamiya Barqad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood.